Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ku tusin doonaa sida loo install gareeyo loona isticmaalo barnaamijka Sony Vegas Pro 10 iyo sida loogu sameeyo crack. Casharkan wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo badan, balse hadda waxaan ku bilaabanaynaa qaybta koowaad, how to get Sony Vegas Pro 10 full version. Sony Vegas Pro 10 waxaa ka heleysaa website-kan hoose ku qoran www.sonycreativesoftware.com. adoo website-ka waxaan kusoo qori doonaa description-ka videoga. marka hadda ila soco casharkan ayaa noo bilaabanaya Sony Vegas Pro 10 sida loo install gareeyo. Hadda waxaa ku muuqda waa setup-ka Sony Vegas Pro 10. waxaan ku sameynayaa install. intaan install gareyn aan ku tuso website-ka aad hadhow kusoo degsanaysid waa website-kan sonycreativesoftware.com download/trials/Sony Vegas Pro. copy aan leeyahay. waxaan la aadayaa web browser-kan soo kicinayaa internet-ka, kadib waa furayaa browser-kayga ama Google Chrome ama Internet Explorer ama Firefox hadba waxaa isticmaalaya. halkaan far kadib halkaas kore ee website-yada lagu qoro ayaan paste ku dhahayaa, right click paste, kadib enter aan dhahayaa. marka waxay raasuysaa sidan ayaa ku arkaysaa Sony Vegas waxaa meesha aad ka heli lahayd. halkan waa soo fiidaysaa, waxaad dooranaysaa midka aragtid versionka luqadda English, Dutch, Faransiis hadba luqada. waxaa intaas kusii dheer waxaad dooranaysaa 64 bit ama 32 bit hadda systemka wuxuu yahay. kadib download halkaas ka dhaysaa. marka aniga hadda waa ii degsan yahay, waa shaashada ii saaran yahay, waa haystaa inaa download gareeyo marka waa kan ila soco setup-ka, right click open. waxaa roo sugayaa markuu soo furmo, kadib waxaa ku arkaysaa sida hadda ku muuqata luqadaad dooranaysaa English ama France hadba waxaad taqaanid. kadib next halkaan imaanaysaa. intaan next din waxaad fiirinaysaa halkaas ay ku qorantay download and install new version iyo install current doorna, kadib next aad dhahaysaa. halkaan ayaa free aa ku dhufanay, kadib next ayaa dhahaysaa. halkaan aa kusoo create a shortcut for desktop, check mark ayaa saaraya, kadib next ayaa ku dhufanaysaa. xeeradana install aadaysaa, aad sugaysaa xoogaa daqiiqada yar. kan ayuu dhammeynaa. markuu kan dhammeeyo kadib wuxuu noqonaa macnaha markaas waaw finish, waa dhabaad shaqada. marka isugu daqiiqada yar loading installka ayuu sameynayaa. weli waa sugaynaa. uu dhameeyey Vegas Pro 10 has been successful installed. kadib finish ayaa ku dhufanaysaa. markaad doaad install garaysay waxaad u baahan tahay inaa active ka dhigtid oo register garaysid. serial number iyo balaa wax buu ku weydiinayaa. markaa dhamays kadib ma furaysid, waxaa imaanaysaa linkigan ay ku qoran tahay hoose Sony Vegas keygan, macnaha waa serial numberka meelaha ay ku jiraan. website-kan copy ayaa dhahaysaa, dhow description-ka waa kusoo qoray, copy ayaa dhahaysaa. kadib waa soo download garaynaysaa. waa keygan crack waa midka aad ku jibin lahayd furaha serialka ku jiraan. halkan ayaa best ku dhahayaa, kadib enter. waxay raa sugaysaa website-ka soo kacaya. markuu soo kaco kadib video file waaya Sony Vegas Pro 10 crack zip waaya, download ayaa dhahaysaa. adoo kadib adiga computerka dhiganaysaa. anaa ku tusinaa. marka aniga hadda ay download garaysaa, download uma baahne. folderkan ayuu ku jiraa. furaya open, kadib waxaa ku sameynaysaa Sony Vegas Pro patch. midkaan ay ku qorantahay Sony Vegas Pro patch ayaa furaysaa open. sidan ayaa kusoo baxaysaa. marka kusoo baxdo kadib waxaad dooranaysaa midkan madowga ah. kadib halkan ayaa kusoo baxaysa, waxaad dooranaysaa folderka uu ku jiro Sony Vegas Pro 10. local my computer, local disk C. hoosteeda degaysaa, programmeska gale, waxaad dooranaysaa folderka Sony. kadib waxaad dooranaysaa tan Vegas Pro 10, kadib okay ayaa ku dhufanay. haddan kanaa ku dhufanay plus. waxay rasugay shaqadaan ayuu dhammeynaa hoose. loadingka markuu dhameeyo kadib uu halkan aado, adaa arki doona. kadib waa iska xiraysaa. uu dhameeyo plus crack me, kadib kan kaluusa aada iska xiraysaa. halkaas madow aa u bixaysaa. markaas soo furaysaa kii Vegas Pro desktopka ku saarnaa installka uu dhameeyey. waa kan sida hadda ku muuqata. halkan wuxuu ku weydiinayaa serial number.
from the trial version Vegas Pro dhigi kartaa midkaas 30 biro ku shan laakiin hadda I have serial number serial haysataa ku soo download garaysataa kadib waxaa furaysaa keyganka markaa furto kadib halkan continue click ayaa siinaya xero sugaysaa sidaan ayaa ku soo baxaysa digital insanity kan keyganka waa serial numberada ku jira halkan oo inta keeni lahayd halkaana soo furaysaa waxaad dooranaysaa versionka kadib waxaad sameynaysaa serial numberka halkan soo fi doortaa aan doorto Sony Vegas Pro 9 ayaan doornaa 9 iyo 10 isku serial number waa bay isqaataan 9 soddon ilo bit kadib serial numberkan copy dhahayaa highlight aan saarnayaa kulli copy halkan aan imaanayaa right click paste marka halkan ay fiirso digniintana halkan 1R8 ay ku bilaabnay halkanna 1HF marka waxaa muhiim ah halkan 1R8 ay ku qoran tahay in xaq ku qortid 1R8 wuxuu qormaa tiraysaa laazim 1R8 inaad ku bilaabtid kadib next register online iyo register from another computer midka dhexdooda from another computer kadib next ayaa dhaysaa next markale halkan waxaa ku soo baxaysa registrationka by providing check marka saare midka hoose next ayaa ku dhufanaysaa marka next ku dhufatid kadib waxaad sugaysaa kaasoo sorry kan waa qaadaysaa kan uu diidan yahay macnaha waa ka noqonayaa waxaan dooranayaa midka ay ku qoran tahay register later markale register kale aad khadkeeda leeyahay kadib next ayaa dhaysaa halkan waxaa gelinaysaa serial kale oo midkan hoose ku qoran activation address code copy dhaysaa code marka dhalo kadib halkan ayaa tagaysaa right click paste kadib next ayaa ay ku dhamaatay hadda waa shaqada Sony Vegas kan extra iska dhaya oo ku shaqeynaa arkaysaa waa soo kacay waa ka saanay ku dhamaatay ashirkana maanta intaas ay ku saabsanaa marada serialka agrisid uu ku shaqeynaa free waaye crack aad ku samayso waa jabisay waa ka mar walba isticmaali kartaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.